السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waa kuma qofka raba inuu ku noolaado madaar amba earpod si haddii lagu dhacdo ku noolow imisaad ku noolaan lahayd bil 2 bilooda 2 sana 10 sana muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa ninka earpodka ku noolaa muddo dhan 18 sano 18 sano daawasho wanaagsan daawade ninkan waxa lagu magacaabay magaciisa Mehraan Karim Nazeri amba sidii uu isku bixiyay mudana Alfred sida ninkan meelo badan ayay ku qoran tahay oo lagu daabacay ninkan wuxuu ka soo jeedaa dalka Iran wuxuuna dhashay 1942 45 46 lama hubo meesha ay ku soo barbaaray dalka Iran kadib wuxuu aaday dalka Ingiriiska si uu sii wato waxbarashadiisa isagoo jooga Ingiriiska ayuu wuxuu ka qayb galay mudaaharaad dadka mudaaharaadana waxay ahaayeen dad ka soo horjeeda xukunkii Shah meel waxa ku qoran markuu dhameystay waxbarashadiisii dalka Iran ayuu ku laabtay dawladda ayaa qabatay xabsi ayaana lagu xukumay kadibna waa la soo daayay markay soo daayeen wadanka ay ka tarxiileen wuxuuna rabay inuu u laabto dalka Ingiriiska Faransiiska isagoo maraya ayaa baasaboorkii laga kansar gareeyay meeshii ayuu ku xanimay waa tahay hadaba meel kale waxa ku qoran markuu waxbarashadiisa dhameeyay wuxuu rabay inuu u soo laabto dalka Iran marka isagoo maraya dalka Faransiiska ayaa baasaboorkii laga cashaday kadib France ayuu magangeliye ka dalbaday balse way ka diideen wuxuu aaday Talyaaniga kadib Jarmalka Holland ugu dambeynna Belgiumka dawladda Belgiumka ayaa qaabishay 1980 kadibna waxay siisay sharci 6 sano ayuu ku noolaa dawladda Belgiumka kadib aabihii ayaa dhintay aabihiis markuu dhintay hooyadiis ayaa la soo xiriirdhay kadibna waxay ku dhahday aniga kumaandalin waxay ku dhahday aniga waan ku soo korsado kaliya balse hooyadaadii dhabta ahayd waxay ku nooshay dalka Scotland waa haweeney u dhalatay dalkaas Mehraan arintaa markii loo sheegay wuxuu go'aansaday inuu aado dalka Scotland meeshana uu sharci ka doonto waayay hadaba maxaa yeelay maadaama hooyadiis dalkaas ay u dhalatay xaq ayuu u leeyahay buuxa inuu sharcigaas helo marka wuxuu go'aansaday inuu aado wadankaas Belgiumka ayuu tareen ka raacay ilaa iyo Faransiiska airportka Paris ee Charles de Gaulle airport ayuu diyaarad ka raacay wuxuu ka degay dalka Ingiriiska airportka markuu ka degay dalka Ingiriiska boorsadiisii iyo baasaboorkiisii ayaa ka lumay askartii airportka joogtay ayaa qabatay baasaboor ma haysto dharna ma haysto mina ogaan karaan qofku yahay mar labaad waxay ku caliyeen diyaaradii keentay oo mar labaad la soo saaray dalka Faransiiska ayayna soo caga dhigatay Faransiiska ayaa lagu soo caliyay airportka ayuu ka soo degay Charles de Gaulle askartii airportka joogtay ayaa hadana qabatay ruuxu nasiib darana baasaboor ma haysto warqad cadeynana ma haysto qofku yahayna lama ogaan karo waxayna dhaheen airportka iska joog annaga ayaa xal keenayna askartii way baxeen waxayna soo baareen ninkan cidu yahay waxayna soo ogaadeen inuu ninkan ka soo jeedo dalka Iran balse dawladda Iran dhalashadiisii ay kala laabatay macnaha ninkan wuxuu noqday nin bilaa dal ah totally meel uu ka soo jeedana ma jirto xiligan askarta may ogaan karin inuu ninkan sharci ka qaatay dawladda Belgiumka maxaa yeelay ma jirin nidaamka la yiraahdo Dublinka amba faraha lagu baaro marka waxba way u qaban waayeen waxayna dhaheen xal ayaa lagu raadinayaa airportka iska joog airportka ayuu iska joogay bil 2 bilood sanad 10 sano ayuu airportka joogay 10 sano kadib dawladda Faransiiska ayaa sharci siisay warqad ayayna u keeneen waxayna yiraahdeen saxiix sharci ayaa lagu siinayaaye balse warqadda waxa ku qornaa inuu ka soo jeedo dalka Iran isagana wuu diiday una dhahay wadanka Iran maadaama ay sharcigiiga cashteen maxaad ugu qorisaan meeshan inaan ka soo jeedo wadankaas markaas sidii ayuu ku diiday inuu saxiixa warqadaas sharcigii Faransiiskana sidii ayuu ku waayay 10 sano ee airportka ku noolaa dadka safriga cutooyinka soo reebaan ayuu dacuni jiray sayrna waxa uu ahayd kuraasta airportka taala 10 sano ee la soo dhaafay wuxuu isku mashquulinayay wax qorid wuxuu qoray book uu ka sheekeynaya qisadiisa iyo waxyaabaha uu kala kulmi jiray intuu joogay airportka kadib nin la yiraahdo Andrew ayaa imid qisadiisana ka qaatay qisada qaybaha qaar aan ahayn macquulna ka bedelay kadibna uu soo saaray bookii waxaana booga loogu magac daray The Terminal qoraaga booga xitaa waxa ku qoran Mehraan iyo Andrew taariikhdu markay ahayd 2004 shirkad la yiraahdo Dreamwork Pictures ayaa qisadiisa qaadatay meelaha qaar waxa ku qoran shirkadaas qisadiisa waxay ku gadatay lacag dhan $250,000 Mareykanka meelaha qaar waxa ku qoran free amba lacag la'aan ayay ku qaadatay qisadiisa waxayna yiraahdeen qisada caalamka ayaanu u soo bandhigaynaa kadib laga yaabaa inaad hesho qof wax ku qabta amba laga yaabaa in ay dawladdu xal ku hesho macnaha lama hubo qisada free may ku qaateen mise lacag ayay ka bixiyeen oo way gateen qisada markay qaateen waxyaalo badan ayaa laga bedelay kadib waxa laga sameeyay film atooraha filmkana waxa ahaa Tom Hanks filmkana magaciisa wuxuu ahaa The Terminal filmkii uu najaxay intaas oo milyan oo ah lacagna waa laga helay sidaas ay tahayna Mehraan amba wadana Alfred qof wuxuu qabtay ma helin ninkan la yiraahdo Mehraan markuu arkay qisadiisii in laga sameeyay film isaga dhan uu waashay oo magac kale ayuu sheegan jiray dadka airportka ka shaqeeya markay salaamaan wuxuu ku oran jiray aniga magacaygu maaha Mehraan ee waa mudana Alfred laga yaabaa markuu arkay in qisadiisii laga sameeyay film lacag malaayiin dollar laga faa'iiday isagana aan waxba loo qaban inay taas ku sababtay niyad jab iyo waali 18 sano kadib 2006 Mehraan waa xanuunsaday kadib waxa qasab noqotay inay ka
saaraan madaarka oo ay geeyaan dhakhtar. waxa loo qaaday dhakhtarka waxaanu halkaa ku jiray 6 bilood ayuuna ku jiray dhakhtarkaas. markay soo saareen waxay rabeen inay dib ugu soo celiyaan madaarka war wuxuu arxan darana balse urur kamid kuwa caawiya soo galootiga ayaa u dooday. kadibna sidii ayuu wadanka ku joogay. Mehran wuxuu joogay dalka France lamana siin sharci. wuxuu ku nool yahay xeryaha qaxootiga. ugu dambeyntii Mehran Karim Nazeri ambaba sidii loo yaqaanay mudana Alfred wuxuu geeriyooday da'da 78 jirka. taariikhdu markay ku beegnayd 12 November sanadii 2022 waa sanadkii tagay. haddaba daawada su'aal haddii aad adigu booskiisa ku jiri lahayd maxaad sameyn lahayd? se ma ku noolaan lahayd 18 sano earpod aan xabsi waxba dhaamin? muuqaalkeeni maanta halkaas ayuu inoogu eegyahay. muuqaalkeena like saar, fikirkaagana commentiga noogu reeb. haddii se tahay markii kuugu horeysay eed na soo booqato subscribe dhe. maca salaama fi amaanillah.